السلام عليكم سود وهذا سبتكم channel كيكي سوم كنا سود وهذا مقال كنا مانتا بلس انت اين بلا مقال كن فضل هذا وصلت سبسكرايب دقن بلالكنا فرو kulankii ugu horeeyay ay kulmaan in soo sheedaan ajiib waxa ay ahayd 2500 oo sano ka hor dhalashadii nabi Ciise alayhi salaam baabilna waxa ay ahayd magaaladii ugu horeysay ee adduunka laga taago Nabruud waxa uu dilay aabihii si boqortooyada baabil halkiisa uu la wareego maalin baa oday daroofaysan qasrigiisa gudaha u soo galay Nabruud baa ku yiri warwaayeel yaa ku ogolaaday inaad halkan timaadid odaygii baa yiri waxaan u jeedaa nin boqor iska dhigayo sidii uu naago ugu dhex jirayna naaqaadi ha noqday Nabruud buu ula jeeday Nabruud baa xanaaqay waranka aqdhawaa intuu la soo booday odaygii wadnaha kaga taagay isaga oo warankii dhinac kale ka bixiyay odaygii baa dhulka ku dhacay Nabruud baa yiri waxa uu wax ka sheegayaa nin qaansooyinka iyo waramaha ku ciyaari jiray Nabruudna waxa uu kamid ahaa dadkii ugu dhiigdaadinta badnaa taariikhda dunida waana ugu fasahaadka iyo kibirka badnaa adduunka lama filaan Nabruud waxa uu arkay markuu soo jeestay odaygii uu haday dilay oo haddana soo kacay Nabruud wuu yaabay oo waxa uu siri ma odaygii aad wadnaha waranka ka dhehdusisay waliba geeri uga talaabsatay miyaa haddana soo kacay Nabruud ma oga waxan in uusan insi ahayn uu ahaa ibliis oo oday iska soo dhigay Nabruud iyo ibliis ka soo aad u leeyahay badan baa dhaxmartay la soo qaybta labaad waxaan soo gelin doonaa channelkan